dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Kenya 16 Febraayo 2019 waxa ay cadeynaysaa kow dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta madax-bannaanida qarannimada midnimada iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya labo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay aad uga xun tahay war-saxaafadeedkii aan xaqiiqda ku salaysnayn ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayna ku amartay danjiraha Soomaaliya ee Kenya inuu wadatashi ugu laabto Soomaaliya iyadoo sidoo kalena wadatashi ugu yeertay danjiraheeda war-saxaafadeedkaas oo ay ku jireen qodobo meel ka dhac weyn ku ah dowladnimada sharafta iyo daris wanaagga ka dhaxeeya labada shacab saddex dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in khariidada shidaalka ee Soomaaliya ee lagu soo bandhigay shirkii London ay ku muujinaysay badda Soomaaliya isla markaasina aysan jirin wax xirmooyin blokis ah oo la xaraashay afar dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku kalsoon tahay xaqnimada dacwadda ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxa ayna aaminsan tahay in ay maxkamaddu u qaadi doonto dacwadda si xaq ah sidaas darteedna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa in laga war dhowro go'aanka maxkamadda shan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo maraysa wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah waxa ay dowladda Kenya la wadaagtay qoraal rasmi ah oo ay uga fal celinayso war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda lix dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay xusuusan tahay kaalintii wanaagsaneed ee dowladda Kenya ay ku garab istaagtay Soomaaliya toddobo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan oo muujiyay midnimo iyo wadaniyad taageerana la garab istaagay dowladooda